Soomaaliya waxay qaaday tallaabo taariikhi ah oo muujinaysa jihada cusub ee u jihaysatay kadib ku biiristii rasmiga ahayd ee bulshada Bariga Afrika. Bilowga qaadashada baasaboorka Bariga Afrika ma ahan kaliya dukumeenti isbedelay, balse waxay fursad u tahay bulshada Soomaaliyeed. Haddaba waxaan wareysanay qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Muqdisho muhiimadda ay u leedahay fursadan. waa kuwan iyagoo ka hadlaya anaga dhool ahaan farxad weyn inoo tahay waana fursad kale oo sii fududeynaysa ama balaarinaysa ganacsigeena qaasatan weliba qaaradda Afrika oo hadda xarunta ugu dhow ah ku leenahay Kenya waana wax weyn dowladda federaalkana uga mahadcelinayna inay fududeysay in dad bulshada Soomaaliyeed fursadan weyn ee Bariga Afrika qayb uga noqon karaan inay u sahashay caqabada ugu weyn uu xalin kara waxa waay baasaboorkan in ay sahal noqonayso ama si fudud loo kala gooshi karo wadamada Bariga Afrika ganacsatada ay u sahlanaanayso inay si fudud wadamada kala duwan ee Afrika ganacsigooda ay gaarsiiyaan ee isugu socdaalaan waxa kamid ah faa'iidooyinkiisa waxa la yiraahdo inaanu qofku xad lahayn oo wadamada dhan uu ka qaadayo xadka dhaqdhaqaaqa qofka wadanku rabo uu tagi karo taasina waxay u fududeynaysaa inuu ganacsado qofkii Soomaaliga marka hore ganacsiga ku astaysana waxay noo sharciyeynaysaa jiritaankeenii hore aan wadamadaas kaga shaqeysanaynay Soomaaliya marka ay fiiriso South Sudan Ethiopia qaybo badan oo kamid ah inta badan Kenya Uganda ganacsi xoogan ay ku leeyihiin marka waxay u xoojinaysaa sharciyad u siinaysaa waxyaabaha lala dhudhuuman jiray sharciyeysan ay kaga ganacsadaan ay u sameynaysaa dhanka kale waxaan wax ka weydiinay dadyow ku nool magaalada Muqdisho aragtidooda ku aadan wallahi anaga dhaleer ahaan waxaanu wax weyn inoo tahay oo asbaabta koowaad ina adduunka la tartamno qayb kala qaadano way fiican tahay oo baasaboorkeena meel saro gaaro marka waa ku faraxsanaa wallahi billahi taala wax weyn wax barashada faa'iido noqonaysa safartood dalxiistood xataa dad hadda wadamo qaar ka ah dalxiis baasaboorkooda loo aadi karin ma tahay kulli ninkii tagay East Africa ama dan ka galay dan ee ka gashay dan waxbarasho dan ganacsi iyo dana kale qofkii ka gashay ku soo noolaado ku soo ceeshay baa dareem kara faa'iido ay leedahay East African passport marka waa guul weyn oo noo soo hoyay Xaawo Nuur Bilan Media Muqdisho